ugu yaraan 65 qof ayaa ku dhintay masjidka xaramka ee magaalada Maka ee dalka Sacuudi Carabiya kadib markii uu ku soo dumay galabta wiish kamida kuwa lagu dhisay halkaasi masjidka. ilaa 100 dad ka badan waxa la sheegayaa in ay ku dhaawacmeen. haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaan goor dhaway telefoonka magaalada Maka waxaan kula xiriiray Axmed Aadan Dagaal Axmed Safiina oo ah wakiilka arrimaha xajka ee Somaliland oo aan weydiiyay bal sida ay wax u dhaceen. walaal farxaanow meesha waxa ka dhacay maanta roob weyn baa aad u daay Maka. roobkii wuxuu watay hilaac iyo onkod culus buu watay muddo 12 sano waa roobkii ugu cuslaa magaalada Maka ka daa. danab ayaa wuxuu ku dhacay wiish kamida wiishashka xaramka dhisayay. wiishkii baa isagoo googo'ay ayuu dadka ku soo daatay maqaamu Ibraahimka gadaashiisa weeyaan barxadii weyneed ee dadku ay fadhiisanayeen ay ku tukanayeen marka la dawaafo. wiishkii oo googo'ay ayaa dadkii ku soo dumay. goormay marka ay arintu dhacday? waa salaadii casar iyo salaadii maghrib intii u dhaxaysay abaara 5 ilaa 4 badkii. wiishkuna marka wuxuu ahaa mid lagu dhisay miyaa masaajidka? wiishash badan baa xaramka ka taagan dad fiidiyoyada ka daawatay xaramka lagu dhisay marka wiish aad u culus oo wiishkii ugu weynaa buu ahaa. wiishkan uu danabku ku dhacay. haye qasaare intee leeg buu geystay marka? wallahi walaal khasaaro dadku aad bay u badnaayeen dad badan oo soo dawaafay oo Ilaahay ka aqbalay intay dawaafkii dhameeyeen ragcateenkii sunnaha tukanaya ayuu ku dhacay wiishku. xaaladdu aad bay u culustay oo caafimaadkii iyo maxaa emergency-ga oo dhan Maka ayaa kor u kacsan. waxa dhimashadu ilaa hadda maraysa sida la sheegayo 65 bay dhimashadu hadda maraysa. dhaawacuna wuxuu marayaa 154 qof ayuu dhaawacu marayaa. laakiin lama kala yaqaano ilaa hadda dadka dhintay wadamada ay ka kala yimaadeen. ilaa hadda wadamada ka yimaadeen lama garanayo. Soomaali badan inaga way joogtay Maka iyo xaramka way joogaan. ilaa hadda imika waxa la sheegayaa hal nin oo Soomaali oo dhaawaca ayaa jira. maanan xaqiijin magaciisa iyo meeshu ka soo xajay. laakiin Soomaalida dhibaashadoodu way ku yartay alxamdulillah rabbil caalamiin. hadda ma garan bal sawir ka sii dadka aan aqoonin ama aan xajka tagin masaajidkan Maka ee weyn ee xaramka meesha uu ku yaal ah inta uu la egyahay baaxadiisa iyo dhulka dadku ay joogaan. masaajidku farxaano walaalo meel aad iyo aad u weyn weeyaan. taqriiban waxa ku tukan karaya ilaa 4 milyan oo qof ayaa markiiba ku tukan karaya. meeshan waa meeshii ugu jaamka badnayd. waa maqaamu Ibraahim gadaashiisa waa dhanka bari ee masaajidka xaramka. saaxada dawaafka weeyaan halkii lagu dawaafiyay. wiishashkana waa wiish kamida wiishashkii ku taagnaa Safiya Marwa dushooda. waa ilaa 12 wiish oo halka isbarbar yaala weeyaan. mid kamida ayuu ku dhacay danabku. marka wiishku intuu googo'ay isagoo qurbaca ayuu ku soo daatay dadkii dawaafayay dadkii tukanayay labada ragcadood dawaafka ka dambeeya. marka danabku ma qasaare kale u geystay mise wuxuu ku dhacay wiishkan? danabku wiishku ku dhacay. marka walaal wiishku wuxuu birihiisa kaliya tamaahay wiishka waxa saaran sabado waaweyn oo wiishku xagga dambe ku sitaa jira oo markuu wiishku culayska qaado xajinaya isaga. marka macasabadihii waaweynaa oo midkii walbaaba ilaa 200 tan ay tahay ayaa dadkii ku soo dumay oo ku soo daatay. marka xitaa isagu gidaar buu ku soo dhacay. hadduu keligii ahaan lahaa way fududaan lahayd. wiishku gidaar kamida gidaaradii safa ayuu ku dhacay. gidaarkiibaa ku soo duma dadkii finiinkii dhagaxaanta waaweyn sabadaha ayaa dadka laayay. ma garatay walaa